insha allah waxaa rabaa keliya inaad sawir ka qaadataan ani qaabkan u trade gareeyo waxa akademiyadu kugu sugi doona sidaas darteed aniga waxaa isticmaalaa charts kale xaggan 3 chart baa uga jeedaan box chart baa uga jeedaan reserve chart iyo oro windowga meesha aan trade ka galo xaggan waxaa ii yaal isna chartskana ii yaal oo isheeg maxay tahay ani waxaa isticmaalaa ilaa 7 chart 8 chart maxay tahay marka chartskan waa hal saac marka suuqa saliida laakiin isaga xilli kasta uu furan yahay laakiin waxaan sugaynaa aamiska xilligay kasoo gelayaan big playerska xilligay kasoo gelayaan sugaynaa waxaaba ka dhiman hadda 14 daqiiqo 14 daqiiqo insha allah waxaa isku dayayaa haddii aan sadab helno inaan galo sadabku wuxuu yahay idiima sheegi doono oo waxay noqonaysaa shuruuc sharci baa jebinaya oo yani arday waxaa jirta maxay tahay iyaga lacag baxsanaysa marka saas darteed keliya meesha ka galaayo iyo meesha ishtobteeda taal iyo meesha uu tag profitkayga yaal insha allah waa idiin sheegi doonaa idinkana si live ah aad uga wada jeedaan xaggan waxaa uga jeedaan maxay tahay demo labadan waa demo kan waa live accountigayga waaye oo insha allah live accountigayga ku trade gareyn doonaa maxay tahay hadda suuqa saa u jeedaan suuqa saliida mise oilka mise olyada saa u taqaanaan dhowrkii beriyo lasoo dhaafay suuqa wuxuu ahaa jimcihii ilaa jimcihii long buu ahaa markaanu chartskan halkaa saac soo qaadano maxay tahay jimcihii waa kana ilaa intaa way jimcihii suuqu long buu ahaa maanta oo isniina lama oga suuqu meesha u juhaysan doono laakiin levelkan uu xalay uu ka furay uu saaka uu ka laabtay oo haddana dib ugu soo laabtay oo haddana uu ka laabtay uu hadda uu ku socdo waa level dhowr mar hore laga soo celiyey haddii aan xagga u jeedaan maxay tahay haddaa youtube-ka daawatay analysahan amise liinyahan waa kuwii aan xalay aan sameeyey youtube-ka falan hal mar soo daawo oo arag sida aan analysahayga amise taxliilintayda asbuuclaha u sameeyo maxay tahay systemkana maahan dee waxa anaga u fikirayno waa system haddii aan setup helo setupskayga wuxuu isiin doonaa insha allah isaguna tag profit iyo stop buu isiin doonaa waxa aniga fikirayo maaha yani shuruuc wax kastoo yimaada maxay tahay shuruuc bay leeyihiin haddii uu setupisku ii wada dhammaystiro inuu setup 100% u yahay insha allah waa geli doonaa toosna waa u arki doontaa boxkan haddaan ku sheego qaybtan waa box chart baa lahaa suuqa waxaa ugu jeedaa si live ah baa ugu jeedaa marka xagga aragno waxaan u maleeyaa adiga inaad garanaysid keersayaashaan garanaysaa waa u maleeyaa laakiin keersayaashan tiraa kasii hooseysa markaan hadda saa dhaho keersiin lama arkayo laakiin haddii aan soo dhoweeyo tiraanu arkaynaa tiradaasi waa information aan uga fiicannahay dadka kale so informationkan haddii aad haysatid tradingkaaguna wuxuu noqon doonaa insha allah maxay tahay qof diyaarsan baa tahay meeshan waxaa uga jeednaa doomka intii ahaa suuqa waktigan la joogo qiimahan la joogo inta contract lagu kala iibsanayo amise isheeg maxay tahay inta wax iska iibinaysa iyo inta wax iibsanaysa fadlan qofkaas hadlayo isku day inaad mood isa saartid sidai ardayda kale ay u maqlaan amise uga faa'iidaystaan suuq muxuu sameeyey 15 saacadii lasoo dhaafay xaggan waa 8 subaxnimo marka maraykanka u tahay suuq momentum dheer uu sameeyey hal mar uu kor aaday waxaan rajaynayaa xiisuhu inuu maanta yahay long laakiin long ama short waxaana siin doona insha allah setups aan heli doono laakiin aniga long bay igu badan tahay inaan raadin doono maxay tahay waa kaasa cabdullaahi waxaa samayn kartaa shaashadaada waa la wareegi kartaa maadaama hadda waxaa hartay wax badan baa haray wax yar linkigaa shashar garaynaya waxaan samayn doonaa insha allah asxaabta crypto dadka xiiseynayo meelo waxaan tusin doonaa akoon deemaha aad ka furan kartaan aad kusii trade garayn kartaan dadka rabo cryptocurrency-ga iyo stock marketka idinkana insha allah qofkii xiiseynaya hadday jiraan iisoo qora shaashada haddii aad rabtaa inaad ogaataan cryptocurrency-ga ama stock marketka asxaabta kalena halala wadaago qofkii xiiseynayana qaybta chatka kusoo qoro si aan shaashada idinla sheer garay haddii la rabinna ma sheer garaynayo sooma so guys waxaa jira suuqo kale oo aan aniga trade gareeyo laakiin aan u badnayn
xaggan waxaa uga jeednaa Oristox haddii aad rabtid wuxuu yahay inaad fahantid videogii ugu horreeyay aan YouTube soo geliya soo saar Oristox waxa loo soo gaabiyo waxaan iyo stock exchange laga isticmaalo kan waa goldigii kan waa Euro USD kan waa FTX kan waa Bond Future kan waa Nasdaq kan waa S&P 500 Dow Jones waaye so marka inaga maanta saliidda xooga saareynaa amse uulka xooga saareynaa maadaama aan suuqan aniga aad u jeclahay maxay tahay suuqan volatile ma hadda sida markii S&P la fiiriyo S&P 500 marka ayna fiirino weli ma uusan furmin suuqan laakiin markii uu furmayo xaggan waa yaabaysaa waxa ka dhacaya dagaalka adduunka ka dhacaya marka saas darteed maxay tahay insha Allah waxa ku laaban doonaa qoraalkaas asxaabta soo qorayaan shaashadiisii marka asxaabta crypto aan isla fiirinayna insha Allah stop dhahaya Soma yes stop screen sharing okay asxaabta soo dhawaada broker badan ay jiro horta stock market ka imaato laga faa'iideysan karo casharadani waxaan rajayn doonaa inaad ka faa'iideystaan insha Allah waqtigan idin siinayna dad badan waxaa laga yaabaa maanta inay si serious u qaadaneen laakiin maanta waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan dadku faa'iideyno maalmoodna waa sameynayna every morning insha Allah New York session inta furmin ani saaki desktopkay ma aqaan wax ka qaldan waa share green waayo soo marka laptopkay noqdo inaan ka soo galo so waxyaabaha idinka saacidayo kale waxaa kamid ah waxaa dhihi kartaan oo kale best demo stock trading waxyaabaha idinku sahlan oo kale just google-ka gelin kartaa waxaa dhihi kartaa best maxaan dhahaa demo trading practice so way fara badan yihiin you know aniga hadda kuwa badan aan idin tusin doonaa maantay sida la iskaga diiwaan gelin waa idin tusin doonaa insha Allah hadduu ilaahay raalli naga noqdo ninja trade waa la yaqaanaa oo waxaa yaqaano dadkan badanaa futures ku jiro eToro xataa waa la sameyn karaa dadka ku jiro maxaan dhahaa cryptoda ayay aad u wanaagsan tahay eToro kale hadda taa tagno isna ina account real ka furinaysid muhiimadda waxay tahay ina ka furitid account oo maxaan dhahaa demo oo practice oo wax ku practice gareynaysid so marka qofkii raba xataa ardaydiina arday qof kamid ah haddii aad rabtid ina account demo furitid just emailkaaga ii soo dir you know intaa kaaga furi karaa xataa hadda tan aniga qofkii inuu naga diray emailkiisa waa jeclaan lahayn inaan helno si aan account demo ah oo hadday noqoto cryptoda ama wixii inaan sameeyo so marka trading platform haddaa tagno waxaad tegi kartaa kale qofkii raba inuu tago kale copy trading ko kale markaa tagtid anything aad iskaga dhufan kartaa markaas ku caawin karo you know kadibna waxaa leedahay started ama sign up labaduba dhihi kartaa so marka waan sameynaynaa wax yar eToro saa ka mid ah continue ama iska cancel garee so marka waxaa leedahay sign up so waa akoonada akoon ka mid ah waay brokerada la isticmaalo sidoo kale waxaan fiirinaynaa niche trade qofkii rabo waan fiirin karnaa laakiin muhiim inooma ahan maxaa yeelay badana waxaa ku badan maxaan dhahaa futures marketka FX qofkii rabana sidoo kale uu sameyn karaa so marka still research baan sameynaynaa ana waa idin sheegay mar walba aan wax sameynayo ama rabo inaan wax isbedel sameeyo homework baan sameeya iskama sameeyo so marka dabeecaddaasaan rabaa inaan ila barataan hadduu ilaahina gaarsiiyo so marka weli researchkii baan sameynaynaa ma raba ani inaan broker aan karnay trade aan idin guliyo ustaadi mudka ma iska qaadi kartaa ustaadka mudana salaam aleyna aniga ha maxay tahay waa maqlaa codka waa xiray si aan u dhegeysanano good so marka Owanda waa dadka FX-ka ku jiro marabna inaan sameyno sidoo kale maxaan dhahaa meelo badan ay jiro hadda tusaale kale e-trade oo kale waa ka sameyn kartaa Charles Schwab oo kale waa ka sameyn kartaa laakiin dadka basic ah stock marketka aniga ahaanteeda 100% waxaan kula talin lahaa inay isticmaalaan Webull waa broker wanaagsan oo laga sameyn karo maxaan dhahaa tradingka you know hadday imaato stock tradingka iyo paper tradingka labaduba waa laga sameyn karaa waa broker ma ahan hadda si fiican maqla ma ahan inaan account real ah furanayno account real ma furan kartaan maxaa yeelay haddiidan wixii account lahayn aan in badan ku jirin account real ma furan karto muhiimadda waxaa waa account demo ah oo ku trade garaysid aad ku barbaratid marka casharo badan waa ka sameeyay stock marketka Somali Innovation ku jiraan so marka I hope qof baa ila soo share garay emailkiisa
ما يقول وأنه كان يقول سفيهنا على الله. وحافظنا Soomaalida waxa waa ayadoo waxa la iska aqrisanaya la iska soo gelay cashirka okay username askar ahaan tusaalo kale wiil Soomaali anaga muhiimadeena dan kama lihin oo account demo ah wiil Soomaali ama wiil yar labo iska dheh so email qofkii rabo email inuu noola soo share garay account-kan waa ku siin karaa adiga hore hadaba qaadan kartaa because marna anaga inaan ku trade gareyno because of demo inaan furto hadda ani xisuumahay qofkii rabo inuu demahan si isticmaalo oo xiiseenayo emailkiisa waa noola share gareyn karaa oo kale qofkii doona haddii kalena email kale iska gelinaynaa okay sidoo kalena webull aan tegaynaa asagana sidaas isla mid ah samayn doona insha allah trade haddaa tagno wuxuu ku siinaya trade oo practice ah oo demo hadda suuqii ma furno waad ujeedaan stock marketka waxba mar dhaqaaqaayo waad ujeedaan suuq wax dhaqaaqa ah ma lahan ujeedado wax dhaqaaqaayo ma lahan because of waxaa ka dhiman 3 minute 3 daqiiqo ayuu isbedel dhici doonaa insha allah hadduu ilaahina gaarsiiyo so marka waxaa tegaynaa paper trading markaa tagno halkaanaad paper trade ka samaynaysaa lacag oo maxaan dhahaa oo fake ah oo real ahayn oo account aad ku babaranaysid so marka asagana account aan ka furnayna insha allah qofkii rabo email wuu noola soo share garan karaa haddii kale waxay noqonaysaa aan emailada isticmaalo mid kamid ah inaan ku furno so marka waxaa rabnaa kana inaan stock market ka fiirino midkan inaan ka fiirino maxaan dhahaa cryptocurrencieska so marka meelaha kale cryptocurrencieska lagu ogaado qofkii doonayo kale wuxuu tegi karaa maxaan dhahaa waxyaaba ugu fudud oo kale wuxuu samayn karaa inkastoo aan idin soo diyaariyay brokero fara badan oo Soomaali dadka joogo kale ay ka furan karaan akoono waxaa dhihi kartaa kale crypto life aa dhihi kartaa kale crypto life wax kale ha sameynin kuwa badana kuu soo baxay so marka coindesk oo kale contractor oo kale crypto watch oo kale investing oo kale way fara badan yihiin brokerada waxaan oo dhan crypto life skrill oo kale xataa waa ka heli kartaa inaad kala socotid price-ki waqtigaas intuu marayay live data so waxaa kaloo tegi kartaa qofkii rabo inuu helo live qofkii rabo inuu helo kale halkaasoo ka daawan karaa live qofkii rabo kale inuu rabo helo kale wuxuu ka heli karaa maxaan dhahaa live coin watch oo kale halkaana ka daawan kartaa coinankii ugu dambeeyey meeshii maraayeen pricekii bitcoin oo kale hadda waxay maraysaa 44 ethereum oo kale halkaasaa kala socon kartaa pricekii meeshii maraayey iyo maxaan dhahaa exchange-yadoo kale hadday noqoto overview oo kale waxyaabahaas o dhan waa ka samaysan kartaa so marka weli waxaa idinka sugayaa qof inuu email ila share gareeyo haddii kale Binance ma leedahay demo ustaad ani Binance ma isticmaalo because of ma aqbalaan dadka US joogo Binance haddaan tago waxaan isticmaalnaa Binance US so Binance iyo Binance US way kala duwan yihiin isku mid ma ahan Binance US isticmaala Binance marka ani haddaan tago wax dhan kama furin kari register haddaan dhaho oo aan geliyo tusaalo kale emailkayo kale aan geliyo whatever email aska dhaho fiiriya wax yar aan tusinayaa gmail iska dheh then password markaan u sameeyo wuxuu doonaa iska ahaado account kama furan kari way diidayaan because of clientiga ma aqbalaan waddanka aan joogo now so mujududo IP addresska ka soo gelaysid dadka waddankani joogo US ma aqbalaan so marka Binance ani waxba kama arki kari serverka dhan ayaa wuxuu ka xiran yahay waddankani so marka dadka waddamada kale joogo maybe inuu u shaqeynayo laakiin aniga ma shaqeynayo yes Soomaali dadka joogo brokero badan baa aqbalo hadda tusaalo kale haddaa tagno maxaan dhahaa exchange-yada our crypto life exchange-yada haddaa tagno hadda kan oo kale Kraken Soomaali dadka joogo wuu aqbalaa haddii aan ku dhufto I hope inaan brokerka ii soo baxo brokerkani dadka Soomaali joogo wuu aqbalaa 100% I don't know marka ilaa hadda ma la tijaabin qofkii hadda ku jiro qadka wuu tijaabin karaa brokerkan website-ka Kraken ku qoran tag dadka clientiga Soomaali joogo wuu aqbalaa 100% iska diiwaan geli qofkii xiiseenayo informationka buuxi I don't know inay website-kooda waxa ku qoran Soomaali aqbalnaa so marka kaasa kamid ah brokerada Soomaali aqbalo sidoo kale waxaa kamid ah exchange-yada haddaan dib ugu noqdo waxaa kaloo kamid ah brokerada Soomaali aqbalo waxaa kaloo kamid ah
waxaa kaloo ka mid ah ucoin oo kale dadka Soomaali wuu aqbalaa qofkii Soomaali joogo suuqa hadda ayuu furmay insha Allah dadkiinan hadda ayuu suuqa dhaqaaqay so waxaan isku daynaa insha Allah account demo inaan furano email ma ila soo share gareyseen yes Kraken waa la isku haleyn karaa waa exchange aad u weyn boqolkiiba boqol wuxuuna ka dirsan yahay dalkani waa one of the biggest exchange ee caalamka ugu weyn hadda haddaan tagno exchange-yada caalamka ugu weyn I hope inay halkan ahayd yes halkan haddaan tagno exchangeska waad u jeedaan the top exchanges ee caalamka ugu weyn I hope tan inay aqbalaan Soomaali I hope inay aqbalaan Soomaali emailkayga ku jiraan listiga let me take copy ka qaad waxaan sameynaynaa waxaa leenahay search aan sameynaynaa asxaabta insha Allah asxaabta kale la wadaaga cashirka si ugu faa'iidaystaan control V available countries